السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاasheen فتحي على فتحي channel أصحابي maalin wanaagsan insha Allah waxaan rajeynayaa caafimaad qabtaaniin asxaabi maanta maxay Fatxi caliini wadaa cuntay wadaa ma cunto ma wado maantay cuntada waa ka gambisanay insha Allah waxaan sameynayaa maanta wax heer bala tinta in ku jilcisan karno kuna qurxisan karno tintana go'niinka iyo waxaas inooga saaraysa insha Allah anigu waa tijaabiyay waa wax aad u fiican run ahaantii aadna ku anfici doona hadii aad tijaabisaniin insha Allah waxaas maxay ka kooban tahay wax basiida oo u maleynaya inuu yahay ma qaan kale waxyaabaha qaar guri kasta oo Soomaaliya u yaala waxa laga yaabaa inaa wax hal xabo weydaanin halka xabana dadka wax kala ku bedelan karnaa bidaalkiisa marka insha Allah asxaabi hadda waxayna tusaysaa sida isugu dardarsanayo iyo sidaan u sameysanayo jilcisadaas waa jilcisa dabiiciya tinta nafaqo ku siin doonta ku hagaajin doonta kana heli doontaan hadii aad tijaabisaan insha Allah wuxuu ka kooban yahay halkan waxa iigu jira baalkan kitaan baa la dhahaa ma garanayo walaal Soomaali wax lagu dhaho kitaan baa la dhahaa kanaan u maleynaya inay heli doontaan inay heli weydaanin baan ka baqayaa laakiin kala meelaha qaar waa laga helaa dadka Soomaaliya ma qaan laakiin dadka qurbuhu way helayaan inta badan insha Allah kan waa u jeedaanin waa kaas kitaan halkan waxa iigu jira qasil oo u jeedaanin qasilkeena ama sidir qof walba wuxuu yaqaano halkan waxa iigu jira xulbada faa'iidadeeda lagama sheekeyn karo iyada ma sha Allah sida wada ogtihiin halkaas saddexdaas iigu jira halkan waxa ii yaala xabad afakaada oo aan nuska isticmaali doono afakaada oo u jeedaanin halkan waxa iigu jirta saliid qof kastii wuxuu rabo buu ku isticmaalayaa aniga hadda tanaan haystaa oo oleelifadeen caadiga ahayd qof kastii laakiin wixii uu haysto oo anfacay madaxiisa buu ku isticmaali doonaa insha Allah maxaa sameynaynaa waxa soo kan inta ka isticmaalayna tusaya waan dhaqaynaa dhaqniin buu u baahan yahay fiican xulbada ana qaadan ka isticmaalayaa hadda qaadan ka isticmaalayaa qasilka hadhow markaan soo dhaqo karkariya baan ku darsanayaa kan isagana waa dhaqaynaa waa kan baa muhiim laba qaadan ka isticmaalaynaa kan aad buu muhiim u yahay run ahaantii tintana wax ka dhigay jileec dhaaftay oo dabiici ah kana labada qaadan ka isticmaalaya ka xulbadana qaado oo u jeedaanin kana waxa ka soo isticmaalayaa nus marka maxaa sameynaynaa si u isticmaalaynaa asxaabi kan waan dhaqayaa waxaan ku shubanayaa kaliya kan yarka ah dabkan saarsanayaa waa u jeedaanin waan dhaqayaa si fiican baa u dhaqayaa kana waan dhaqayaa si fiican baa u dhaqayaa labadaas waan dhaqayaa halkaas aan ku shubaya dabka biyo yar baan ku darayaa biyo aad u yar adigu koob ka yar xataa nus koob meelahaas aan ku darsanaynaa dabkan saaraynaa muddo adigu wuxuu inoo saarnaanayaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo waxaan u baahanahay inuu si fiican inoogu karkaro markuu karkaro waa ina tusayaa sida aan isugu qasayo insha Allah asxaabi waa kan waxa inoo soo diyaar noqday kitaankeeni iyo xulbadii sana diyaar inoogu yihiin oo u jeedaanin isaga sida uu yahay dabkan soo saaray wuuna soo qaboobay wax yar baan daayay inuu qaboobo waa isagoo kulul lana maran ku miiraya maskan markii isagoo qaboobo miiri karo u jeedaanin waxa sidii sama fiiri isaga dhan waxa u maleysaa kareem oo kale sida kareemka oo kale bisu jiidanaya waad aragtaaniin isaga dhan ma sha Allah marka hadda waxaan sameynaynaa makiinada shiiditaanka baan ku ridanaynaa waa kan waa shiidaya waa kan makiinada shiiditaanka ku ridaya hadda waan shiidaya fiiri sidoo yahay u jeedaan sama waa shiidaya intaas isku soo baabiinaya hadhow waa ina tusaya sida aan u kala miiraya insha Allah hadda soo miiraya waxaan ku darayaa afakaadada tan oo aan ku shiidiyo waan soo kala jartay laba nus baan ka dhigtay
marka nuskaan aan ku darsanaya, nuskaan waan dhiganayaa. qofka inta uu maxay ahayd uu ku xisaabtamaya oo kimiyada u qasanaya ay tahay hadaa dhowr qof ku qasanaysaa nin xabada iskaga darsan, laakiin hadaa kaligaa tahay nuskaas ka dhigo qaso. marka insha Allah hada nuskaas aan ku qasanaya, kaligay baan ahay insha Allah nuskaas aan ku qasanaya. hada nuska kalena talaajadaan gashanaya insha Allah. waad aragtaan asxaabi sida aan ka dhigay qaadadan ku fuujistay. marka insha Allah waxaan sameeynaya waxaan ku ridanayaa khalaatada oo alaabta kale ay igu jirto insha Allah. asxaabi waatan hada way noo soo diyaar garowday ma sha Allah sida u jeedaanin. waad aragtaan sida ay noqotay aan ina tusay u jeedaanin. wax kasta waxa ku fiican marka gurigaaga ku samaysanaysid run ahaantii kareen dibadda hada waxa uga bariimeeno. marka insha Allah laakiin waxa sameeynaa hada waxa soo dhan tinta hadii uu galo laga saari karo. marka waan miireynaa hada waxaan ku miireynaa malqabad ama maskan qof kasta wuxuu u yaqaano. ani hada waatan halkan iigu xirantahay asxaabi waa u jeedaanin. waatan saxankayga waan soo korsaarsadaan alaabta ku ridanayo. waatan waa u jeedaanin taasan dhiganaya oo alaabtayda aan ku ridanaya ku miiranaya insha Allah. bismillah. wax kasta wuxuu ku wanaagsan yahay marka gurigaaga ku samaysatid waxaad adii og tahay oo aad taqaanid oo dabiiciya. inta suuqa ka soo gadan lahayd wax kiimika ah oo hadhow aad ka nadmaani lahayd insha Allah rajaynaya in hooyo kasta tijaabiso ama gabar kasta ay tijaabiso. waxa weeye inta aad qayrka ku mashquul lahayd naftaada ku mashquul oo waqti sii. nafta oo waqti la siiyana wax ka wanaagsan run ahaantii ma jirto. marka aad naftaada waqti siisid waa waqti la qaadatid. sawaan tintana waxaan leenahay meesha oo laga fiiriyo gabadha quruxdeeda. marka asxaabi u jeedaanin waad aragtaan bay ila tahay insha Allah hadana kanan ku miiranayna. saa u jeedaanin hada waa inoo diyaar waan soo miiray ma sha Allah. u jeedaan iyada sida ay tahay ma sha Allah tabaarak raxmaan. hada maxaan ku darsanaynaa qasilkii iyo saliidii inoo haray inta kale waan dhamaysanay. intii ugu adkeedan soo marnay waa kan oo u jeedaanin. hada waxaan ku darsanaynaa qaado qasil insha Allah. waad u jeedaan qaado qasil ku darsanaynaa iyo qasilkaas wuxuu siinayaa hadhow tinta nucmad iyo yani raali hada asxaabi ciyaal yaryar baa iscaajiya. u jeedaanin ma sha Allah. intaas si fiican hadii isu dhex gashanayna ilaa ma inta tinta uu noqonayo sidii hadeerta oo kale wax isaga dhan ma sha Allah. waa aragtaani sida ay yihiin ma sha Allah. laguma sheekeyn karo sida uu noqdo. u jeedaan asxaabi ma sha Allah. hada waxaan sameynaynaa tintii soo marsanaynaa. waxa loo baahan inuu sida ahaado sidii kareenka lama rabo inuu biyo ahaado. hada waa sidii kareenkii waa xamal inay kaamirada adeeg beeninaysa laakiin ma ahan adeeg. waa u jeedaanin waa kareem sidii kareemka oo kale noqday insha Allah. hada intaas tinta marsanaynaa in adigu muddo ah saacad 2 saac ilaa 3 saac waxa uu ku saarnaan karaa. aniga insha Allah waan marsanayaa wuxuuna ii saarnaan doonaa madaxayga ilaa 2 saac meelahaas insha Allah. adigu saacad ilaa 2 saac waxaan maleeyaa qof ka badan inuu waxna madaxa u saarnaan doonin. taas oo maxay tinteyda aniga mariyay oo ku fiiriyay oo isticmaalay. gabdhaha yaryar baan u isticmaalay wax kale ma isticmaalo. marka insha Allah asxaabi waxaan rajeynayaa inaad tijaabin doontaan idinkuna isku fiirin doontaan. marka saas diyaar igu yahay aniga saasaan ku marsanaya insha Allah. adigu hadeerta hadaan marsanaya bacad 2 saac waa iska dhaqi doonaa insha Allah. asxaabi saas diyaar inuu yahay kareemkeeni waa ma sha Allah. waa kareem dabiici ah oo aan guriga ku samaystay oo ma sha Allah wax kastana uu ku jirana uu fawaaid leeyahay faa'iido fiican. marka insha Allah waxaan rajeyn doonaa asxaabi in ay idinkuna tijaabin doontaan
oo aad fiirin doontaan in hooyo walbina ilmaheeda ay ku fiirin doonto biidni illaahi tacaala. waxaan jeclahay inaan wax kasta oo aniga i anfaca inaan aan inala wadaago si walaalahayga qaaliga ah ay iyagana uga faa'iidaan insha allahu tacaala. marka asxaabi waxaan ina leeyahay sidaas iyo wada sacad wanaagsan. kuwii hore ila joogay aad baa u mahadsan yihiin walaalahayga qaaliga ahaa. asxaabtayda cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada, subscribe ilaawinina, like, share iyo comment. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.